بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أو ونكسن داوديال ملك استود نجد داونيسان هالكني وقلبيتي في حرمتي سمجال إرميتون إدلك كندا عاوة وحمرتين وجوا أحمد سليمان وكم إذا أضياشها خاتمي ستيد أوف سوماليا وكونوا الوقوي أمريكا جارهان قبل كالبرتا وحن عاوة كوريسان شقاقوين كشجين كدعين مجال الأسعار ضيق بدهان دول خاتمي ستيد مدن أمريكا ركتور وقلبيتي في وندوهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدن أحمد واحد كميت هاي أضياشة خاتم يستيد وقوي أمريكا. واحد من عاون أن كاور يصنع وحيابيه وجودا بيه كسر كوري دجان كان مع مقابلات كخاتم يستيد ولا قصة شيء شقاقوين هرله أو دمشق يدا عبله كدي مركي محن كلا معمول كهرجيسا يدمعين إنه كد لوجد بلدجو مجال الأسعار. أنت أسيم محل كوكت هاي محل سكر صعتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دمان waxaan salaamayaa marka hore idaacada Soomaaliya Galbeed TV ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Khaatumo meel kasta ay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh arintaasi way jirtaa maanta oo aan ahayd 28 May maalintii qashinka loo aqoonsaday waqooyi oo dhan inay tahay maalintii qashinka ilaa reerkan SM oo iyagu sheegta maamul halka waxa iskaga horreeyay dadkii qashinka guriyay iyo ciidamo meel walba lagu wareejiyay oo diidaya in la guro qashinka weerarada dhacay dad baa lagu dhaawacay dadna waa lagu dilay isbitaaladuna waa buuxaan qaarna waa lagu xirxiray hase ahaatee way meel martay waxaan maanta idin cadeynayaa la saacad qayb ka mid ah inay maanta caawa gacanta Khaatumo ku jirto kuna jiri doonto insha Allah imise qof markaa dadka dhibaato ka soo gaadhay runtii dhaawac badan baa dhacay dhimashadu laba weeyaan in xaggooda dhaawacna waa fara badan yahay xabsiyaduna waa buuxaan dadka in la caburiyo la damcay waa la caburin waayay sababtoo ah xaq iyo xaqdarra dagaalamayay meeshana waxay noognahay inuu wada meynay jirin wax la yiraahdo Somaliland inay jirin wax lagu heshiiyo oo goosasho ah inay jirin wax lagu wada hadlay oo goosasho ah mar baa la isu yimid dhawankii markaana waxaa laga wada hadlay kaliya sidii ummaddu nabad ugu noolaan lahayd nin ma caburi karo beelaha Somaliland kamid ah ayaa arrintan wadata iyaduna dadka waxay ugu khasbaysaa qaar ay lacag siiso iyo qaar ay u hanjabto iyo qaar ay martaqaana maamul u bulan qaado tiina way dhamaatay waqtigeedii dadka markaa dhibaatadu ay ka dhacday maanta ama ku dhintay ma waxay haayeen dad u soo baxay inay dabaaldegaan maamulka Hargeysa mise waxay haayeen dadkii maalinta qashinka hawshaasi nadaafada ku jiray dabaaldeg uma soo bixin dadkan waxay u soo bixeen maalintii qashinka inay qashinkooda iska nadiifiyaan oo xilligii roobka ah inay nidaamiyaan dagaalku uu ka dhacay Woodward oo lagu laayay hablo masaakiin oo waliba gurigooda lagu galay gacmaha laga jajabiyay soo la dhacay wuxuu ka dhacay Ergaabo wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Xudun wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Laascaanood meel kasta oo Khaatumo ah maanta inteeda badan way ka jirtay arrinta habeennimadii baa ciidamo lagu soo daadguriyay meesha taasoo la rabay in dadka lagu caburiyo markaa ma waxaad leedahay dadka meesha lagu laayay may ahayn dad hubaysan may ahayn waxay haayeen dad shacaba oo rabay inay qashinka iska guraan maalinta nadaafadda oo ay ku asteeyeen 18 May runtii dadkani dad shacab ay ahaayeen dad dhalinyaro ay ahaayeen dad maatay ay ahaayeen dad doonaya inay dalkooda nadiifsadaan dadkooda nadaafadda iyo caafimaadkooda ilaaliyaan bay ahaayeen marka ciidamo ku soo baxay hubna may wadan waxaana adduunyada u sheegaynaa iyagoo u sheegaynaa jimciyadda qurbaha ka dhaxaysa u sheegaynaa dawladda ka jirta Soomaaliya ee federaalka aan u sheegaynaa arrintaa in la dheer loo yeesho runtii waanu ka jawaabaynaa saacad kastaba oo shacabka iyaga wax loo geysto maamulka Khaatumo State waxaan ognahay inuu meelaha qaar ka taliyo dhulka Khaatumo State wax jawaab ay ka bixiyaan arrintaas runtii maamulka Khaatumo State meel walba ka taliya adeynteedana de wasiiradoodu maanta waxay ka hadlayeen Laascaanood oo taas markhaatigeedii baad haysataa runtiina way ka bixiyeen oo way joogeen oo way ka jawaabeen haddana waanu ka jawaabaynaa inaanu dalka iyaga iyo dadka iyaga difaacno in badan buu madaxweynaha iyagu nabad wax ku raadiyey in badan bay dawladda Khaatumo ku baaqday nabad hase ahaatee sida Siilaayo ugu baaqayo nabad darrada ayaanu ugu jawaabaynaa tiisa maxaa u qorshaysan markaa hadda Khaatumo State of Somalia maadaama ay dhibaatooyinkaasi hadda ay ku soo bateen deegaanada intoodii badnayd
oo maamulka heestan ay doonayaan inay qasab loogu dabaaldego runtii dee khasabkani ma soconayo lacag nin la siiyey iyo nin qori caaradii lagu wadaa midna socon maayo wax ka soconayaana ma jiro waqooyi wuu naqaanaa dadka dega waa Khaatumo state Awdal state Maakhir state weeyaan marka runtii halkan iyadana waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto oo aan hambalyeynaya maamulka Maakhir state iyo madaxweynahoodaba oo aan leeyahay soo dhawaada waxaan kaloo u hambalyeynayaa ummadda reer Awdal oo iyaguna maanta ka dhiidhiyay runtii intii tabartooda ah Khaatumo waxay u taagan tahay nabad Khaatumo waxay u taagan tahay Soomaalinimo Khaatumo waxay u taagan tahay inaan dalkani kala go'in muqaddasna waxay kaga dhigaysaa cid kasta oo diidan in Soomaaliya israacdo ayay ku khasbaysaa muqaddasna tahay in la israaco waana gaarina insha allahu dalkuna kala go'i maayo maamulka Hargeysa waxa uu go'aankiisu yahay oo hadda ay sheegeen inay maalgashi caalami ah ay dekada Berbera helaan u iibiyeen waxaana sheegeen in ay mataqaanaa doonayaan in ictiraafkii hadda uu bilaabmay oo hadda ay gobolada qaar lacagiyo fara badan ay ku bixiyaan si dadku ay ugu shaqeeyaan iyaga ama ay ugu adeegaan ama ugu sacbiyaan arrintaasi reer Khaatumo maxay ka taagan yihiin runtii dekada tan waxaan maraynayaa weli inaan naga wada gaarno iyagii dowladda federaalka ah runtii weli go-aanka ma ayan gaarin dekadiisu waa dekad Berbera ku taala mar haddii Berbera ku taalana dee dhulkii Soomaaliyeed ee la iibiyey kama fiicna dekadu ceelashiisi waad tahay oo haamihii shiraalka hore loo soo iibiyey dhulkii dowladdu ka tagtay ee ummadda ka dhaxaysay waa la iibiyey kuwii dadku lahaa baa laga boobay meesha waxaa ka dhacay hanti goosad in yar baa mataqaanaa nolosha ku naaxda ummadda sida gofanaha marka wixii hore un bay lamid tahay calow waxay soo kordhinaysataa waxba ma soo kordhinayso hadda inagoo bartanka kaga jirna waraysigeena Khaatumo state iyo Maakhir state waxaan hore u maqalnay inay midoobeen arrintii midowga Khaatumo state iyo maxaan ku rahaa Maakhir state halkay ku dambeysay wallahi runtii arrintaasi inkastay siyaasiyiinta khusayso haddana dee kulli wax caana oo la ogyahay runtii maadaama ay hadda maamul leeyihiin oo madaxweynahooda ay ku dhawaaqeen runtiina ay sharaf tahay noo soo korortay dhammaanteenba arrintaasi way socotaa wayna soconaysaa intaan ka ogahay mudan Axmed waxaan ognahay in waqooyiga Soomaaliya ay beelo fara badan degan yihiin beelaha faraha badanna waxay aaminsan yihiin midnimada Soomaaliyeed Khaatumo waxay ka mid tahay ragga aaminsan ama dadka aaminsan midnimada Soomaaliyeed haddaba sidee looga bixi karaa baas leedahay maadaama ay hal beel oo ka mid ah beelahaas waqooyiga degan ay kasoo horjeedo midnimada Soomaaliyeed sidee looga bixi karaa baas leedahay mataqaanaa arrintaasi runtii horta Soomaaliya oo dhan baa dhibaataysan ilaahay dhibaatada ay naga qaado dhammaanteenba gaar ahaanna waqooyigu waa sii dhibaataysan yahay oo SN baa dhibaato ku haysa runtii waqti fiican bay soo mareen jaanis fiican bay heleen kama iyo faa'iidaysan jaaniskoodii laakiin hadda waa loo cunayaa ninkii cuni waaya haddiise la yidhaha see looga bixi karaa masalan horta gacmahooda jirka way ku gooyaan marka hore midnimu aragti fiican iyo maskaxa meel fiican lagu gaara tala fiican iyo tusaale meel lagu gaara ummaddan haddii la yidhaaha laysu yimaado waqooyi ahaan aynu wax u wada hadalo oo nin walba maradan aad la ordaysa intaad meel iska dhigto oo halkaa ka timaado adoo istayda iyo imo oo istayd ahaan aynu wax isugu darsanno oo nabadgelyo sidaa aynu ku doonano waa la heli karaa laakiin inta ay leeyihiin reer annagaa idiin talinayna oo dad intay lacag siiyaan noo sacbiya yidhaahdaan oo midda toora yidhaahdaan oo noo sabciya yidhaahdaan dee ninna khasab ninna ma khasbi karo waqtigan aynu maanta ku jiro khasab nin ku shaqaynayaa ma jiro waxaa weeye caqli baa loo baahan yahay maskax baa loo baahan yahay wiilka dhibanayaa waa wiil Soomaaliyeed gabadha dhibanaysa waa gabar Soomaaliyeed ilmaha badda lagu gurayo ee dhammaaday waa ilmo Soomaaliyeed seebeynu u badbaadinaa carruurteeda sida nin walba gurigiisa uu jecel yahay in ilmihiisa iyo ubadkiisa u hagaagaan waxaan odhan lahaa silaayo iyo inta uu maamulo inay ka tanasulaan waa muqaddas jiritaanka Soomaalinimada waa muqaddas israaca Soomaaliyeed sagaara laba tun oo la kala qalamale baa leeyahay qofku inuu dreaming sameeyo oo mar uu wax intuu ku fakaro iskaga kaco oo uusan ka soo noqonin ma dhici karto waxa weeye go'niin ma jiro wayna og yihiin member of federal inay yihiin way la socdaan haddaan tusaale kuu siiyo maanta waxa ka mid ahaa silaayo khudbadihiisa anigoo ah odayga waqooyi itimiin isuu ka xishooday inuu yidhaha madaxweynihii baa dhahay
khudbadihii laga rabay iyo meelihii la rabay inuu ka hadlo adduunyadana wuxuu ka hadlay Ethiopia iyo Djibouti iyo Soomaaliya ana adduunyada inta xataa kuwii wax siin jiray soo doorsan jiray bay loobeen marka runtii hadday wax haystaan dadka maanta ku dhamaanaya badda iyo carruurta ku dhamaanaysa waqooyiga badan wayna 25 sano sheeganaya dawlad intii Soomaaliya la siin jiray iyo in ka badanba waa loo dhiibay nin maalmood aanu sheekaysanaa wuxuu ii sheegay income-ka soo galay 25 years waqooyi macnaha qof kastoo reer waqooyi haddii la siiyo 2 milyan iyo bar baaqi baa soo hari lahaa lacagtaasina hal meel ay gashay hal qoys bay gashay business bay noqotay intii kalena waa sacabaynaysay oo garaacayeen garaacina ka soo daalay waa kuwa maanta ilmihii u wixii waddanka Brito qabsan lahaa badda lagu qorayo warseeba looga badbaadiyaa hadday tahay war hal isu yimaado maskax caafimaad qabtana hal isu yimaado miisna hal la wada yimaado hal la soo fadhiisto hal la wada hadlo oo nin wax la yiraahdaa ma jiro laakiin sidii waqooyi ahaan wax loogu doonan lahaa laga wada hadlaan leeyaan marka waxaad leedahay qasabkan iyo sacabintani wax dhamaanaya weeyaan ma soconayso wax dhamaanaya weey laakiin waxaan dhamaanayn dadnimada garashada aqoonta intaas bindima dhamaato guntiga gabagabadii maxaad soo jeedin lahayd shacabka reer waqooyiga iyo dadka reer Khaatumo u sacabiya ama waxaan ku raadin maamulka Hargeysa wallahi nimba waxa la maamaha Soomaaliya jirto horta nin soori ka qaaday baa waa nin seef ka qaaday ujeedid iyo hadal midna ma leh nin isagu doonayay inuu kaliya noolaado alushi lacayaan oo alushi lacayaan ilkama baxa weey laakiin waxaan oran lahaa sacabkan iyo sheekada tan iyo lacagta yar la qaadanaya waxa ma tarayso inta walaasha lagu hordilayo hooyada lagu hordilayo oo wiilkaaga lagu hordilayo adiga Brito aad tahay next kan ku xiga waxaan ugu baaqi lahaa nin wala wadantaada garo ummadaada raac la imo difaac dalkaaga waxaa jira wax muqaddas ah oo run ah oo aan laga leexanayn ninku hadduu gurigiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa waxa xun ka ilaalin waayo huwa waxa weeye dayuus ilaahay dayuus nagama dhigo waxaan leeyahay kuwan caqligoodu muqan yahayna ilaahay caqligooda ha u soo celiyo kuwan caqliga daradu haysatee dad kale u sacabutumayowna waxa ay qiimo leedihiin waxa weeye inta waddanka la qabanayo waddanka haddii bar la qabto kii la socday iyagu waxba heli maayo insha Allah la qaban maayo kuul iyo gobonimo waynu dadaaleynaa annagu waanu go'aansanay haddaan mid naga xarayn inaanu dalkayaga difaacno inaanu dagaalano inaanu ku jahaadno haddii nabadda waayo aad iyo aad ma santahay kaas waxa uu ahaa Axmed Suleymaan oo kamid ah odayaasha maamul goboleedka Khaatumo State oo ku nool waqooyiga America gaar ahaan magaalada Edmonton oo kula oo nagu soo booqday studio-ha maamul goboleedka Audley State xaruntiisa magaalada Edmonton ee dalka Canada Axmed aad iyo aad baa ugu mahadsan